محمد بن سلمان مسكين كاسيركا اللي لا يابيا يا nin saxafi oo caalami oo wargeysiga wax ku qoro oo khatar ah yaa wuxuu yiri sijil lahaaribin inuu ku qoro dabcay waxay bal qonsuliyada soo gal qonsuliyadii uu galay inuu galay baa u dambeysay waxa ninkan uu soo galay xagee la geeyay markaas ay ma waxoogaa nala joogay uu naga tagay aw haduu idinka tagay xagoo maray maxaa loo arki waayay markaas adeer waxa dhan ma su'aalo in la weydiiyo la rabo su'aali markii la weydiinay oo kisto su'aalaha isku yara adkeeyay wiil marka ku su'aalaha weydiinay kamid ah ku xanaaqayo dhuuntu qabtayo markuu dhuunta qabtay kadib odayna wuu ahaa wuu caburay saas daraadeed wuu dhintay waayaha wuu dhintay away meydkiisa haduu dhintay maya meydkiisi waa sidii maxay ahayd kuwii oo nabi yuusuf la dhashay qamiis intay soo qaadeen dhiig marmariyeen yay u keenan odayga waxay dhaheen yuusuf waraaba cunay qamiiskiisina waa ka dhiigiisa bal fiiri markaas wuxuu dhiigin soo fiiri wuxuu waxaan la yaabanahay waraabaha wiilkayga cunay dulqaad badnidiisa la yaabanahay wiilkiina wuu cunay shaatigiina meel ka muuna jeexin seebu uga siibay waan la yaabanahay haduu waraabaha cunay muxuu goosan way qamiiskan muxuu dhinac uga goosan way gacmo muu qaba waraabo tartiib uga siibay nabi yuusuf qamiiska maya marka qamiiska sidii oo kale ku sameeyeen saxafigi maya waa la ceejiyay ma awmeedkiis aaway lama hayo xagee la geeyay ilaa hadda wixii dhan waa la hayaa waxay ku noqotay marka arrin la yaab leh haday moodaan Sacuudiga inay san wax ku noqonayaan ninkaas ma isku taabteen laakiin moogtay Soomaaliya waxay yiraahdeen meeshu Ilaahay wax ka wado dameera weyle ka dhala dameer iyo weyl isma la moogtay meeshu Ilaahay wax ka wado hadda ninkaas maxaa meesha keenay waxa la yiri gabar uu rabo inuu guursado warqad fasax ah in loo qoro ayuu Mareykanka uga yimid safaarad Mareykanka kuma taalamiya meeshu joogay meeshaas intuu tawahay warqadaas aan rabaa in la ii qoro ilaa tan Turkigu way qori kartaa tan Mareykanku way qori kartaa maxaa loola soo doontay tan Turkiga gaalada aqli xumidooda waxay la soo doonay waxay leeyihiin waxay rabeen Turkiga inay ku ceebeeyaan ay dhahaan nabadgelyo kama jirto Turkiga saxafiyiintiya waa kaas waa lagu dilay laakiin Turkiga ma yaqaanaan Turkiga waa dad ilbaxa oo xadaaro hore way ku dabagediyeen markaas waxay ku noqotay in qalaba sixru ala saaxiri sixirka nin oo saaxira wuxuu sameeyay inuu dadka sixiro asaga laabis sixiraj asaga in qalaba sixru ala saaxira la yiraahdo way ku dabagedoontay marka maanta waxay taagayeen Sacuudiyaanku Turkida inay iska babariyaan oo dhahan walaalayaalow xaaladu si kasoo ahaato wax kastaan idin siinayna lacagaha Mareykanka siinay ka badan idin siinayna qadiyada naga soo afjara Turkiguna uu leeyahay arintaas ayada hatta waxay yiraahdeen waxay talmiix waxay u sameeyeen Sacuudigu soo qadar mayna go'doominin oo qadar mayna hareeraynin oo yaani muddo mayna dhibaynin waxay talmiixina waxay leeyihiin hatta qadar waan la heshiinaynaa oo waan ka qaadaynaa cuna qabatayntii caadi aan ka dhigaynaa arinta le marma naga aamusiin kartaan oo wax lacagta waan markaas wuxuu dhaxal suugaha soo qadar ka hadlahay qadar inkastoo wax nagala dhaxeeyaan colaad saas oo kala ah laakiin dhaqaalaha wadankaasi uu dhisan yahay 5 sano ee soo socotana dhaqaalaha ka sii xoog weyn ayaa laga moogtay uu isdii markaysa madaxu dariiq ku dhuftay marka hore wuxuu lahaa intii la xisaaro oo cuna qabatay qadar ayay wuxuu dhan waa taad aan sheegayno oo kale Turku marka wuxuu yiraahdeen haadi rishwatun siyaasiya laaluush siyaasadeed anagu ma qaadano arrinta waan baaraynaa nala shaqeeya xaqiiqada aan ka kortagno kuwii dilay ee junaada waa la yaqaana kuwan waliba arrintu ma kuwan dilay ee la soo diray ma sheekadu moogtay nin askari oo la diray wax soo sameeyay la yiri kii soo diray inaad u jeedid waa intii af meegaan dhijirin hadda koor libaax intuu neef ka qaaday yuu xaga iskala fariistay libaaxi ma bacarrayo libaax neefkiisu iska cunaaya kii neefka iska lahaa libaaxi oo neefka cunaayo arkay ag taagay u jeeda intuu ka sii jeestay ma fiirin kare yuu dad xagga maray wuxuu ku yiri libaaxi neefka ay qaaday raadkiisi ma aragteen way arkaan dadna waa arkaa libaaxi ma aragteen way u jawaabeen marka waxay yiraahdeen libeeka waa aragayte santis may ku weydiyaas libaaxa kan waa fadhiya neefku wuu cunayaa raadkiisi ya arkay iyo xaquu ka baxay marka sheekadu halkaas ay joogtaa marka adduunkan Ilaahay baa iska leh